4 filim oo uu Salman Khan diiday balse uu Shahrukh Khan magac weyn ku helay. Soo dhawow daawada mar kale, waa anigoo ah Axmed Deeq Xasan. halkan aad naga dawanayso waa Deeq Same. nala joog ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. mahadsanid. Salman Khan iyo Shahrukh Khan waxay ka mid yihiin xiddigaha filimada ee ugu caansan Hindiya, waxayna masraxa hogaaminayaan in ka badan 30 sano. Labadan xiddig oo dhashay 1965 waxay filimada ku biireen isku waqti, waxayna weji cusub u yeeleen habka jilitaanka filimada Bollywoodka oo ay guulo taariikhi ah ka soo hoyiyeen. Ilaa maanta oo ay weli magac weyn ku leeyihiin jilitaanka, waxay haystaan taageerayaal badan, xirfadoodana ma istaagin, labadoodana waa saaxiibo isku dhow. Laakiin marka taariikhdooda jilitaanka dib loo eego, waxaa jiray dhowr filim oo Salman Khan uu ku gacan sayray balse uu Shahrukh Khan qaatay guulo waaweynna ka soo hoyiyey. Waxaa ka mid ah aflaantaasi: 1. Baasigar. Salman Khan qudhiisa ayaa shaaca ka qaaday in markii hore loo soo bandhigay filimka Baasigar ka hor inta uusan soo jirin Shahrukh Khan. Waraysi uu bixiyey ayuu xiddigan caanka ah ku yidhi, waa iska diiday Baasigar. Markii uu Abbas Mustan ii yimid isagoo qoraalka filimka wada, aabbahay ayaan la tashaday. Wuxuu ku taliyey in maadaama uu yahay door laadarnimo ah, ay ku khasban yihiin in ay hooyada qayb uga soo daraan. Way aqbali waayeen. Markii aan filimka ku gacan sayray, waxay u tageen Shahrukh Khan, kadibna hooyadii ayay qayb uga soo dareen. Laakiin kama qoomamaynin gebi ahaanba. In filimka aktarka hooyo loo yeelo waxaa iska lahaa aabbahay Salim Khan. Filimka Baasigar waxa uu soo baxay bishii Noofembar ee sannadkii 1993, waxaana Shahrukh Khan ku wehlinayay jilayaasha ay ka mid yihiin Kajol iyo Shilpa Shetty. 2. Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. Ka hor inta uusan Shahrukh Khan soo jirin filimka Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, waxaa la soo tabiyey in doorka magaca tooraha ee la yidhaahdo Raj Malhotra loo bandhigay Salman Khan. Xitaa Saif Ali Khan ayaa laga codsaday inuu booskaas galo, laakiin waxaa la sheegay in labadoodaba ay iska diideen. Lama oga sababta ay labada atoore dhagaha ugu furaysteen codsiga filimkaas. Hase yeeshee, markii dambe waxaa qaatay Shahrukh Khan, filimkiina waxa uu noqday mid laga daba dhacay. Xitaa Soomaalidu ay jeceshahay Dilwale Dulhaniya oo soo baxay bishii Oktoobar ee sannadkii 1995, waxaa Shahrukh Khan ku wehlinaysay Kajol. 3. Jack de Hindiya. Salman Khan ayaa mid ka mid ah waraysiyada lala yeeshay ku kirtay in loo soo bandhigay jiritaanka filimka Jack de Hindiya balse uu diiday. Sababta waxa uu ku sheegay inuu dhibaato ku qabay magaca uu watay filimka. Warbaahinta Indiya waxay sheegeen inuu diidayay inuu niyad jabiyo ama ay ka xamaadaan taageerayaashiisa ka soo jeeda Pakistan iyo Bangladesh. Qisada filimka waxay ku saabsan tahay nin xiddig ciyaaryahan ah oo loo arkay inuu waddankiisa khiyaanay balse marka dambe muujinaya inuu qarankiisa daacad u yahay. Waxaa kale oo ka soo muuqday atariishooyinka kale ah Vidya Malfade, Chitrashi Rawat iyo Sagarika. Kalho Naho. Sida ay tabiyeen wargeysyada ugu caansan Hindiya, Salman Khan waxaa loo xushay inuu filimka Kalho Naho ku jilo doorka uu qaatay Saif Ali Khan. Balse Salman ma uusan doonaynin inuu atooraha labaad ka noqdo filim uu hogaamiye ka yahay Shahrukh Khan, sidaas awgeedna wuu diiday. Filimka Kalho Naho ayaa noqday mid ka mid ah filimada loogu jecel yahay Bollywoodka, waxaana Shahrukh Khan iyo Saif Ali Khan ku wehliya atariishada lagu magacaabo Preeti Zinta. Haddii aad ka hesho muuqaaladeena, fadlan nagu dhiirigeli legtaada channelkeenana ku soo biir siina gudbi muuqaalkan si aan u helno saaxiibo adoo kale ah. waadna ku mahadsan tahay tixgelintada.